1. Unanimously finds that there is no agreed maritime boundary between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya that follows the parallel of latitude described in paragraph 35 above. qof waa dhigi karaa aniga intaasaan aan meeshaasaan ka qayb qaatay maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay sidaasaan sameeyey qof waa dhigi karaa laakiin guushaan weyn oo timiday qof ma sheegan karo waxaa guulaystay xaqa waxaa guulaystay sareynta sharciga guushaan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doonteen maxkamadda caalamiga ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland waxay Soomaaliya u xukuntay 12 bisha Oktoobar 2021 inta badan dhulbadeedkeedii oo awalba ay muranka gelisay dawladda Kenya murankaasi oo si rasmi ah u soo shaacbaxay heshiiskii is-afgaradka ah kadib ee dhacay sanadkii 2009 mahad oo dhan waxay u sugnaatay allo weyne oo guusha soo marsiyay dhanka Soomaalida marka labaadna waxaa mudan in loo mahadnaqo madaxdii halganka u gashay in badda Soomaaliya aysan Kenya ku wada welimaysan sidaan la socono waxay maxkamadda caalamiga ee Soomaaliya u xukuntay inta badan badeeda oo Kenya ay awalba muranka gelisay xukunka dhacay markaan si kooban u sheegno waxay maxkamadda 90% la dhihi karaa waxay u xukuntay Soomaaliya halka 10% ay siisay Kenya maadaama maxkamadda ay diiday loolkii am xariijintii Kenya ay ku doonaysay inay ku xadiiso badda laakiin taas bedelkeeda waxay maxkamadda soo saartay xukun am xad cusub ay u jeexday Soomaaliya taas oo ka dhigaysa in Soomaaliya ay ka tagto qiyaastii 12 mayl oo badeeda ka mid ahaa taas oo maxkamadda ay ku macnaysay sixid ama dib u hagaajin haddaba intaan falanqayn kale u galin go'aanka maxkamadda Soomaaliya ku xukuntay oo ah inay ka tagto cabirkeeda saxda ahaa oo 12 mayl ee dhanka Kenya la marsiyo aan isla fahanno waxa mayl badeedku uu yahay waa maxay mayl badeed nautical mile mayl badeedku waxaa loola jeedaa maylka lagu cabiro badda waayo waa mayl ka duwan kan bariga lagu cabiro maylka badda waxaa loo yaqaanaa nautical mile oo af Soomaaliga ku noqonaya mayl badeed halkii mayl waa 1.85 kilomitir amaba 1852 mitir halka maylka caadiga ee bariga uu dhigmo 1.6 kilomitir amaba 1609 mitir taas oo muujinaysa in mayl badeedka uu wax yar uu ka badan yahay maylka bariga tusaale 1852 mitir haddii laga jiro 1609 mitir waxa soo hariya waa 243 mitir mayl badeedka waxaa loo soo gaabiyaa NM nautical mile haddaba 12 mayl ee Soomaaliya xariijinteedii hore ee saxda ah laga soo durjiyay ee dhanka Kenya la mariyay waxay la cabirtahay Muqdisho ilaa ay la foolo meel ka baxsan dherer ahaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay u arkaan in intaasi Kenya la siiyay aysan waxba ahayn marka loo eego intii hore ee Kenya ay sheeganaysay laakiin 12 mayl ee Kenya maxkamadda caalamiga ugu deeqday faa'iido badan ay ku qabtaa ama ku qabi kartaa walow ay madaxdeeda dunida isaga dhigayaan dad xukunka maxkamadda ka soo horjeeda oo qaadacsan Kenya sababihii ay horey ugu doonaysay in xadbadeedka Soomaaliya ay u gasho waxa ka mid ahaa in ceel lagu magacaabo block L5 oo qiyaastii 150 kilomitir gudaha xadbadeedka Soomaaliya u galay ay ka cabiratay si ay shidaal ugu baarato midkaas oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Kismaayo gaar ahaan Ras Kamboni ceelka block L5 wuxuu ku yaalaa meel 135 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Lamu ee dalkaasi Kenya ceelkaasi wuxuu xeebta u jiraa 80 kilomitir wuxuuna ka mid yahay laba ceel oo saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2007 ay ku baxday lacag dhan 100 milyan Kenya si ay u xalaashato xadbadeedka Soomaaliya waxay leenka xadka u dhigtay sida ceelka block L5 uu u galayo xadka Soomaaliya waxayna ku doodaysay in xuduudeeda leenkaasi uu yahay halka aan ognahay in qadka xuduud badeedkeena ee Soomaaliya uu si toos ah u gariyo badda haddaan dib u eegis ku sameeyno damicii Kenya ee ahaa xadeynta xuduudda badda waxay leenka ama loolka qadka ay samaysatay ee dul marisay mid ka mid ahaa 5 jasiiradood ee lama shaaqa loo yaqaan gaar ahaan jasiiradda ugu weyn jasiiradahani waxay qiyaastii 2 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan yihiin Ras Kamboni waxaana loo yaqaanaa lama shaaqa jasiiradahaasi tan koonfurta ugu xigta waa dhagax weyn oo cabirka dhaxroorkeedu uu yahay 50 mitir
haddaba heshiisyadii Talyaaniga iyo Ingiriiska ay ku xadeynayeen Soomaaliya sanadihii 1924 ilaa 27 wuxuu qeexayay in jasiiradahaasi midda ugu yar ee koonfurta ugu xigta 5 jasiiradood ay tahay barta xadiisa badda Kenya iyo Soomaaliya. waa haddii marka hore aan laga hadlin NFD oo xadka halkaasi oo dhanka koonfureed uu ka sii xigi karo. haddaba haddii aan dib u eegno go'aamadii maxkamadda caalamiga ah ee ka soo baxay ee badda Soomaaliya ku aadan, waxay qeexayaan arrimo aad ugu duwan wixii Soomaalida ay dhaxal u lahayd weligeedba. midda koowaad waxaa xaqiiqo ah in maxkamaddu ay caddaysay inaan waxba ka jirin damcii Kenya ay ku andacoonaysay in xariiq jiifta xadka la mariyo. arrintaasba weligeedba Soomaalidu way ogeyd, waayo Soomaaliya waxay lahayd bad ku xadaysan xeerka loo yaqaano sharcigiisu ahaa 37 ee dhulbadeedka waddanka Soomaaliya, Somalia Territorial Sea, iyo dekadaha ee soo baxay 10kii Sebteembar 1972. xeerkaasi oo nambarkiisu yahay 37 waxaa lagu tirtiray hanaankii loo maray aqbalaadii heshiiskiisa afgaradka ahaa ee Nairobi ka dhacay 7 Abriil 2009. qodobka labaad oo ah in meesha sida rasmiga loo xagaldaaciyay inay tahay dhulbadeedka qaybta loo yaqaan Territorial Sea-ga in lagu soo koobay 12 nautical mile. Soomaaliya waxa u xadeysnaa 200 oo mayl oo badeed oo Territorial Sea-geeda ah. sida la og yahayna Territorial Sea-ga waa qayb badda oo la mid ah dhulka bariga oo dalka uu leeyahay, waxayna taasi la mid tahay deerka gurigaaga oo ahaa 200 oo mitir in lagu soo koobo 12 mitir. qodobka saddexaad, maxkamadda Hague markii ay xukumaysay Territorial Sea-ga waxay sheegtay inay tahay 12 mayl oo badeed, waxaana la xusay in aagga dhaqaalaha inuu yahay 200 oo mayl oo badeed oo ah aagga uu dalka uu ka kalumaysan karo ama shidaal uu ka baaran karo, waana aagga dhaqaale. laakiin qodobku wuxuu sii leeyahay dhulka dalka kama mid ma aha 200 oo mayl, halkaasina xigmad weyn ayaa ku jirta. qodobka afaraad, waxaa Kenya loo xukumay qayb ka mid ah badda Soomaaliya, taasina si loo hirgeliyay waxaa dhanka Soomaalida loo soo leexiyay xariiqda kala qaybisa xadka, taas oo Soomaalida ay ku weysay aagbadeed baaxad weyn oo qiyaastii la dhihi karo 25% baddii la isku haystay oo hoos imaanaysay aagga 200 oo mayl oo badeed. waxaana taasi sii dheer in qiyaas baaxaddaasi aan ka yarayn in Soomaalida ay ku weyeyso, taas oo soo hoosgelaysa qalfoofta qaaradda. waa 25% qiyaastii aagga loo yaqaan EEZ. arrintaasi hirgelinteeda waxaa qayb weyn ka ahaa madaxdii Soomaaliyeed oo intii ay dacwada socotay aan marnaba dacwadii ay gudbinayeen aan ku xusin 200 oo mayl oo Territorial Sea-ga inay Soomaalida ay leeyihiin, kumana darin doodii afka ahayd ee qareennadii ay karaysteen ay ka horjeedinayeen maxkamadda. sidaasi oo kale kuma lifaaqin galka dacwada ay gudbiyeen. maxkamadda markaa waxaan la weydiisan kama aysan hadli karin, kamana hadlin in Soomaalida ay leeyihiin sharciga loo yaqaan 37. xigmadda kale ee laga dheehan karo go'aanka maxkamadda caalamiga ee xadeynta cusub ee badda Soomaaliya loo sameeyey waxaa ka mid ah mar haddii ay Kenya diiday inay magdhow ka bixiso xadgudubkeedii shidaal baarashada ama Soomaaliya ay u soo celiso xogtii ay ku ogaatay baaritaankii shidaalka ee dhulbadeedka Soomaaliya ay ka samaysay, in markaa sidaasi oo kale aan lala xisaabtami doonin dalalkii iyo shirkadihii ku xadgudbay badda Soomaaliya muddadii burburka, iyada oo taas aas-aas looga dhigayo in farta lagu fiiqo 12 Oktoobar 2021 wixii ka horeeyey aysan xadaysnayn badda Soomaaliya, oo sidaas darteed aan wax ka soo qaad lahayn suntii lagu duugay badda intii uu dalka burbursanaa iyo kalluunkii sharci darrada ahaa ee laga guranayay dalka. Unanimously finds that there is no agreed maritime boundary between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya that follows the parallel of latitude described in paragraph 35 above. qof waa dhihi karaa aniga intaasaan aan meeshaasaan ka qayb qaatay, maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay, sidaasaan sameeyey, qof waa dhihi karaa, laakiin guushaan weyn oo timiday qof ma sheegan karo. waxaa guulaystay xaqa, waxaa guulaystay saraynta sharciga. guushaan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doonteen.